السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalkayga muslimka ah oo walaashayda muslimadda ahay, wallaahi alcadiim ducada ninkii helo oo siday tahay u qaatee akhriya ee ku dhaqma, wallaahi alcadiim qofkaasi waa qof nasiib badan, waa qof nasiib badan. aad baad u nasiib badan tahay, ilaahay ku xamdi. ducadan waannu akhrinaynaa, kadibna fawaa'ideeda iyo fadligeeda ayaannu sheegaynaa biidni illaahi tacaala. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ولا ليال دعادي وإنتاس دعادا اسكو داي إناد حفديدو. دعادا فوائديدا هدان هل يلابا يسدح كالشيغو أيضا لسوكو بكريم كو وحي سبب النقطة in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kaa gudo dhammaan deymaha lagugu leeyahay. deymahaasoo iskugu jiro dayn allah subxaanahu wa tacaalaa kugu leeyahay iyo dayn makhluuqa ay kugu leeyihiin ama bani aadamka ay kugu leeyihiin. daynta allah kugu yeelan karo waa sida salaaddii kaa tagtay ama soonkii faradka ahaa ee kaa tegay, yacnii waxyaabihii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa cibaadaadkiisa ahaa ee kaa tegay qaday kugu yihiin. dayn ilaahay kugu leeyahay waaye, inaad guddana waa lagaa rabaa. sidoo kale daynta makhluuqa ama bani aadamka uu isku yeeshana sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kaa gudayaa. labada daymoodba haddii awood buu kuu siinayaa haddii ducadan aad akhrido oo yaqiin aad u akhrido, weliba iska akhri lama rabo. sidoo kale ducadan haddii aad akhrido fawaa'idda aad helayso waxaa ka mid a inaad hesho nashaad iyo quwad iyo maaragtaaye firfircooni inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu arsaaqayo. waxaad noqonaysaa qof nashaad leh, waxaad noqonaysaa qof firfircoon, waxaad noqonaysaa qof xoog leh, waxaad noqonaysaa qof awood badan biidni illaahi tacaala. sidoo kale fawaa'idda laga helayo ducadan waxaa ka mid a inay lagu tiriyo sabab inay u noqoto inay kuu soo jiido arsaaqda ayay kuu soo jiidaysaa. marka dambena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa dhigayaa aqani buu kaa dhigayaa, mid hodan ah ama qof hodan ah ayuu kaa dhigayaa waay. waxyaabaha ay leedahay ducadan fawaa'idda ay leedahay waxaa ka mid a in makhluuqa ilaahay subxaanahu wa tacaala sharkooda inuu ilaahay kaa ilaalinayo, oo makhluuqna uusan sharkiisa ku soo gaaraynin inta aad ducadan akhrinayso oo laasimayso waaye biidni illaahi tacaala. waayo waxaad magan gashay waxa weeye asmaadii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaad maaragtaay ilaah ku bariday oo aad tiri ilaahayow igu badbaadi, shar kasta iga badbaadi. idan daabad kuu soo xadgudbi karto oo adiga shar kugu samayn karto ma jirto waayo. qof waxaad tahay ilaahiisii abuurtay, toos ugu xiran, asmaadiisii iyo sifaadkiisii haysto oo ku dheggan ayaa tahay waayo. marka walaalayaal ducadani waa duco qiimo badan, duca la soo koobi karo hal iyo laba ma aha, keliya baraarujin unbaan uga jeednay. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.